تقوها دوغان يريد عدوى عطوها قبيح وعلى دينه ورويكم معه عطوه لليسير عليك واحد تقوها دوغان يريد عدوى عطوها قبيح وعلى دينه ورويكم معه عطوه لليسير هيبقى الوحات ولادعي تلقى غويون هيبقى الوحات ولادعي تلقى غويون Global Guardian waxay ka timid Hodan Global oo 2 sano ka hor la furay magaalada Gaalkacyo ka horna waxay ka timid Hodan Global business-kana ilaa 30 sano waa soo jiray sidaas ayuu farcankiisu u dheer yahay waxaan aragnay maadaama halkaan mar aan nimid adiga 2 sano ka hor baahida ka taagan gobolkan oo business-ka ah caruurteennii meel ay ku cayaaraan aysan haysan ubadkeena dadkeena meel ay ku caweeyaan hoolalkan waaweyn run ahaantii sidaas ayaa markaas nagu dhalisay inaan hotel ka dhisno haddana ku xijino beertii iidaha iyo faamiladu ilmahooda ay keeni lahaayeen run ahaantii marka qaybtaas ayaan ka qaadanay gobolka horumarkiisa annagoo de gobolka u dhalanay oo aan rabno gobolka in horumarkiisa aan wax ku soo kordhino anigu waxaan ka mid ahay milkiilayaasha shirkadahaas soo socday oo soo dhalay Hodan Global ka timid Global Hotel ku xigsaday maantana aan joogno daafurka Global Guardian waxyaalahaas marka oo dhan waxaan u samaynaynaa waa dadkeena inaan horumar gaarsiino run ahaantiina la gaarsiiyo businesska kobcin weyn lagu sameeyo waxay ka mid yihiin ubadku waxyaalaha lagu dhiirado in loo sameeyo ayay ka mid tahay ubadka markii hadda waxbarashada ilmahaaga aad u diraysid ma dilaysid ma uleynaysid waxba u ballan qaadaysaa waxaan rabnaa marka caawina u ballan qaadaan ubadkiina 10 hadda ka bixi weydid Global Guardian ku geyn mahayo si uu u cayaaro oo waqtigiisa uu maarta u qaato 10 uu ka baxaya waa taas waa waxa soo tijaabiyay aniga waxaan ku noolahay qurbaha cunugayga markaan rabo inaan 10 uu ka bixi waayo ama 10 maadi ha noqdo ama ha noqdo 10 diiniye waxaan iraadaa Mall of America ma ku geynayo jimcada ama sabtida ama axada walaaba maalmaha holiday-yada aan leenahay iyo adigu isla socotaan ubadku ayagu cayaarayo ba haddana waalidkii meesha shaahay ku cabayaan marka waa guul weyn adigu ubadkiina fiirsanayo adigu meeshaas ma aragtay ii sheeg shaahina iyo ku baashaalayo marka run ahaantii waa beer weyn lagu dalxiiso ubadkiina iyo caruurtiina iyo xaasaskiina iyo saaxiibadiinba keena waan kaga mahad celinaynaa ka soo qayb gasheen waxaan rabaa inaan bogaadiyo marka ugu horeysa howlkan quruxda badan iyo goobaha aan galabtoo dhan aan ku dhex mushaaxaynay ee Global Garden dadka hantidooda geliyay waxaan rabaa hal mar in loo sabciyo sacabku waa yaryahay sacab badan baan rabaa inaan helo waxay mudan yihiin in loo mahad celiyo 4 sano ka hore waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii u istaagtay in Gaalkacyo ay nabad hesho sababta aan ugu istaagayna waxay ka mid ahayd inaan caawa quruxdaana kala aan aragno waxaan filayaa caawa nabadda halkan loo fadhiyo aan filayo dhalinyaro badan oo reer Gaalkacyo oo labada dhinac ah in halkan ay wada fadhiyaan waxaana keenaya nabadda waxay kale ay keentaa in nin walba oo maaragta dhaqaale haysta oo deegaankiisa galiyo magaaladuna ay korto sida hadda ka war haysaanba ama aad aragtaan Gaalkacyo 4 sano ama 3 sano hadda la soo dhaafay
wax badan ayaa iska bedelay. waxaan rabaa halkan inaan baaqa uga jeediyo dadka u dhashay deegaanadan ama ha noqdaane reer Puntland ama reer Galmudug, weliba si gaar reer Galmudug waxaan leeyahay hantida aad geysanaysaan meelaha kale gaalkacyo la yimaado. waayo hantida qofku uu jeebkiisa ku haysto waxay maaragtay faa'iido u leedahay deegaanka. qofkii waxa laga yaabaa in lacagtiisii uu faa'iido uga helo, waxa laga yaabaa qof walaalkiisa ama dhalinyaro meel kale u hayaami lahayd in shaqo abuur looga helo. inta ka bacdi waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda global. dabcan mulkiilayaasha nin kamid ah halkan ka hadlay heerka ay soo joogtay. waxaan fadhnaa Triple G Global Garden Gaalkacyo numa filna. waxaan rabnaa intaa in ka badan 500 qof in ka badan hool sidaa u camiran in lagu dhiirado dhaqaale inta la eg la geliyo. waxay muujinaysaa yani horumar fiican bay muujinaysaa. marka sanadkii hore 2020kii waxaan ahaa shakhsiga ugu horeeyay koonfurta ku dhigta aroos. gabadha aan guursaday kama soo jeedin koonfurta, waxay ka soo jeedaa waqooyiga, aniguna waxaan ka soo jeedaa waqooyiga. laakiin maadaama isdhaxgalka dhalinyarada in muddo ah aanu maxaa la oran jiray dadaal dheer ugu jirnay oo dhalinyaro fara badan iyo haleeyo fara badan ay nooga dhinteen, waxaan niri war haddii isdhaxgalka aanu u bedelno wax practical ah. waa soo shaqaynay meel fiican wax soo gaarsiinay, practically aan u bedelno isdhaxgalka. xaajiyadeeda iyo reerkeeda waxaan ka dhaadhiciyay inaan arooska la aado koonfurta, qadana xagga lagu dhigo, xilli habeen aan la soo aado koonfurta. dadku maalinta waxay ku adkeed inay koonfurta soo galaan dadka waqooyi jooga. yani perception waxa jiray ah baqdin in qofku wax gaarayo inuu koonfurta du soo aado. kadalika qofku waqooyi jooga koonfurta jooga hadduu waqooyi soo aadana inay wax gaarayaan waa perception qof ku jira. waa hadalkii la yiri oo kale isbaarada waa qalbiga. marka waxaan idhi bal horta habeen aan ku soo mashaxaadno, ku soo dabaaldegno, ku soo baashaano, globalna aan ka bilaawno. waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamul global oo si qurux badan, gobonimo leh, sharaf leh, ciise leh, karaamo leh inoo karaameeyay, weli inoo karaameynaya, soo dhaweeyay, inoo mataqaanaa ogolaaday madax iyo majaba habeenka inaan mashaxaadno aan baashaano. oo mahadcelinayaa taasi waxay sababtay in markay dadkii reer waqooyi wixii intaa ka dambeeyay aroosada waxaa lagu dhiganayay global. yani dadku bulshada horumarka way isku challenge gareeyaan. waxa la yiraahdaa challenge ayay ku sameeyaan horumarka, waana wax loo baahan yahay. dabcan bahda global waxay fikreen war dadkii maadaama ay soo jabeen haddii meel qurux badan oo kale aan u sameeyno caawa xarag jarkeedii haddii in lagu casuumo aan ka soo qayb galo waa ka mahadcelinayaa. maasha allah. waxaan rabaa maamulayaasha iyo mulkiilayaasha Global Garden waxay la tahay sac badan baa loo garaacay, ammaan badanna waa la yiri, laakiin anigu waan u ducaynayaa. waxaan rabaa inaan iraahdo ilaahay ha idinka dheefsiiyo khayr iyo wax wanaagsan. hantidiina aad gashateen meeshaan waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala idin weydiinayaa inaad noqotaan kuwii ku intifaaca, qaatana khayrkii iyo muxaadaradii sheekheennii cadiimka ahaa oo halkan inooga jeediyey. maasha allah tabaarakallah. kasab xalaala ilaahay ha idinka siiyo, allana ha idinku anfaco, annaga iyo intii ka intifaacsatana ilaahay ha nagu ammaanaysto. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leenahay oo ugu baaqaynaa haddaanu nahay reer mudug, dadka hantida ilaahay siiyo, ilaahay uu gacmahooda wax geliyey oo mulkiga ilaahay siiyey hantida, in ay wadanka deegaankeena gobolka mudug khaasatan magaalada Gaalkacyo ay quruxsadaan, waxoodana u huraan. runtii waxa weeye qof waliba bini aadamka ilaahay meel buu ku abuuray. meesha Allah subxaanahu wa ta'ala inagu abuuray haddaynu nahay reer mudugna waa Gaalkacyo. ayada inoo baahan inaynu qurxino
inaynu ka shaqeyno nabadeeda inaynu ka shaqeyno wadajirkeena inaynu ka shaqeyno sidii aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga dhigay dad aan kala maarmin oo aynu u nahay geed iyo xididkiis si gaar ah waxaan u salaamayaa maamulka iyo milkiilaha Global Gandi waxaan leeyahay hambalyo waan ka hambalyeenayaa xarig jarka waxaan ugu darayaa Allah uga dhigo kii lagu liibaano waxaan uga mahad celinayaa quruxdan iyo isku aragan iyo maxay aheeto soo celinta nabadda mar haddii milkiilaha maalqabeenadeenu ay deegaamada ku soo noqdaan waxay ka turjumaysaa nabadda iyo farxadda iyo in naf iyo maalba lagu aamini karo deegaankeena marka waxaan leenahay qof walba u dhashay deegaamadan gobolka mudug ama maxay aheeto maamulkeena inuu naftiisa iyo maalkiisaba ku huro deegaankiisa waayo waxbay u soo celinaysaa raggii dibadaha iyo Mareykanka iyo guryaha ka dhisay kadib lagala wareegayaan kadib waxay ila tahay waxay ku jiraan tuugsi iyo maxay aheeto marka waxaan leeyahay mudane Cabdul milkiilaha Global Gandi waa mahadsan tahay mudane adigana Allah ku barakeeyo faraca labaad oo sameysay iyo kan saddexaad iyo kan afraad waa wax lagu farxaa waa meel maxay aheeto danaha lagu bogan karaa nalama dhahaayo gaalkacyo nabad ma aha ama mudug nabad ma aha hoteelka ayaan lagu talagalay waa hotel Global Guardian gaalkacyo waxay leedahay hoteeladan haatan jooga hoteelkii ugu haystee kulligood u horeeyaan hadda heega ka goynee bulshooyada la hilmaamin oo sidii hogol roobo goor habeena hilaacdii xareedii halcanaysii hirtigaadle sidii iyo dirir hore harkiibaan heemelkiisa la yaabo waa hotel la hubo hoteelkan hodan weeye inantii lagu hooyee si harsaraa lagu hawlee habeen gaara la geeyee helal lagu qabto arooskeeda hanaankii habka u dhacayo hubqaadkiisa la yaabo bulshada hadal hayso waa hotel la hube ee hoteelkaas hadda gaar haybadiisa muuqiyo sida loogu habeeyee leyrka loogu hagaajay marka aad hor timaadid hanqaltaaga dartii iyo hadba meel oo eega naftaada ka helayso adiga ku habaabi hoteelkan hadda haddii aad ku hawooto hamigaagu jeclaaday hoteelkan hodan weeye oo waa la hiigsanayaaye hadafkaaga ku gaaro yaa lagaaga horeyn haddii aad ku hawooto hamigaagu jeclaado hadda aad ka heshay hoteelkan hodan weeye oo waa la hiigsanayaaye hadafkaaga ku gaaro yaa lagaaga horeyn male huur iyo kulayl iyo wax naftaada halleeyay hanfi aad la haraadee cunto aad loo habeeyay inay sharaab ku habsiyaan shaqaala kugu heegan afartaasi dahaygi iyo gabaygi aan hindisaayay ma ku horsho hoteelka afar kale aan hareer dhigay gacmihiina u horshe hotel Garden waa meel habboon oo weligeed la helayn oo mid la heera la haysan horumarka ay hadda keentana hadalkaygu ma koobe haddii aan halka sheego hooyada ubadkeedii mid horaadka u nuugiyo horin gaara hor yaaci yaa hoteelkan hawadiisa iyo haraciisa qabow habbi lagu dalxiisin oo hadda meel u lugay caruurtuna meel habaysan oo habsan lagu diyaarshay habbi ay durdurshaan oo ciyaar heer sare iyo jimicsiga ay ku haystaan iyaduna hooyo weeyo waa horseedkii adduunka hawa may ka dhamaatee sidii haleelada geelbal marka ay hurdufayaan ama ay hardamayaan iyadoon aan hilmaabin hareeraha ay ka eegtaa ilaa halkaas ka fiirsanaysaa moogta meeshana waa ugu shaacabaysaa waa u qowsanaysaa waa u baashaalaysaa caruurtina meeshan ugu ciyaarayaan marka saas halkaas koray ka eeganaysaa marka waxaan leeyahay hoteelkan hodan weeye sida uu u horeeyo hadii loola hayee maalka lagu huree hiilka lagu daree waxba aan loo hagran hirshabeelle dad joogiyo haradigeed ka kor iyo halkaas soo istaagin oo hayaan ku imaan oo waa hubaal hadalkaas afartaasi dahaygi iyo gabaygi aan hindisaayay ma ku horsho hoteelka afar kale aan hareer dhigay gacmihiina u horshe ee waardiyihiisa u heegan in hoteelku dhisnaado iyo shaqaalihiisa ku hawlan inuu heer sare gaaro iyo ragga ilaahay u hibeeyay asagoo dhan hantow hawshan aad qabateen hambalyaan idin leeyahay weligiin kulligiin laymahi foo hormar caalam sameey mulkiilayaasha hoteelkan Global Garden waxaan meeshan iskugu imaanay inaan u mahad celino munaasabadan quruxda badan oo ay ku casuumeen marti sharaftaan badan waxaan leeyahay kun iyo koow jeer hambalyo
waxaan kaleetoo leeyahay dadka u dhashay deegaankan reer gaalkacyood ama reer mudug ha arkeen gaalkacyo sida ay tahay iyo horumarka ay samaynayso dhaqaalaha ay haystaan ha geliyaan deegaankooda qof kasta meesha uu ku abtirsado ayuu iska leeyahay ayadoo dhaxal u leeyahay ayadayna taariikhda u gali doontaa global gaalkacyo garden waxaan leeyahay mulkiilayaashooda taariikhda ayaa idin xusi doonta meesha gaalkacyo ah uga jirtaan ama horumarka ah ka samayseen bulshada reer gaalkacyoodna waxaan leeyahay ama reer mudug waxaan leeyahay ballanteenu waa global garden gaalkacyo ayaan leenahay waana mahadsantihiin assalaamu calaykum شرف بيت هاي وفرح سنة هاي صاحبي عبد السامع قيله وأنا صاحب هاي وعاوه كان كهذي وأنا وين هذا الكسي ويلي عروض هالوشة وأبو أمانة يا تقيمي هذا global garden هذا عروض هذا امتحان خصوصي ووحي بنتي ووحد يا رمضان وكوبو قاعدين يا walaalayaal waxaa kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkan walaalaha oo ayagana labada meelood kala sheeganaya oo caawa wada jooga oo calamadoodu isku meel ka suran yihiin waa bogaadinayaa anugu galabta runtii markaan arkay si gaar ah ayaan ugu sii farxay anugu meeshaan oo kaleeta hadda aan taaganahay meel aan wax badan ka weynayn oo 3 magaalo ka dhaxaysa ayaan ka shaqayn jiray 3 magaalo وصدق المجال عاشور هيك قاعد طيب كانوا كلا طيب كذا أصلا كلا أنت فردينه وكلا المركة وهو حس كعادة وحيابها معرفة ذاتك كان عصتها هي معرفة إيش سميان ذاتك أنا سوسو جدا وحنا هكا كعاد من ضد ولا أو سميدة أيين وعالمكي صومالي يا عالمكي بلاد يا عالمكي قلبي مركان كواتي فرحت في عام تذكيرون هو الجو ومن والله مثل أو صعبين هاي waxaan leeyahay marka hore ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah global garden gaalkacyo galmudug Allah barakeeyo waan ku faraxsanahay caawina ka soo qayb galno annagoo waliba aad iyo aad runtii aan isleenahay fariimo badan iyo hawlo badan baan ugu taagnaa waqti gaabanna fariintuna soo gaartay waxaan aad muhiimadda u siinay inaan halkaan ka soo qayb galno waqti dheerna fadhino waana muhiimadana u aragno inuu ku soo korinayo gaalkacyo ee caawa labadii shacab qiimaha badnaa galmudug iyo puntland halka ay fadhiyaan waxaan leeyahay oo ku dhiirigelinaya ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan kuwa gobolka mudug walaalaheen adeer suufi iyo cabdul waxa ay ku dhiiradeen ee qiimaha badan ee hantidoodii halkan ku hureen ee fayskii labaad caawa halkan aan ku xarag jarnay ha lagu daydo ayagana waxa leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo meeshiina qiimaha badan runtii waxay dhiirigelin u tahay bulshadan anagu shakhsiyan waxaan ku jiray dhalinyarada hore u degdegtay oo runtii dadaalka hore u samaysay hal boos oo qiimo weyn ku fadhiya ayaa harsanaa markaan arkay quruxda iyo cabdul hadalkiisii waxaan isiri maanta ma isku dayda inaa ka mid noqoto saaxiibada halkan nasiibka u yeelan doona mudanayaal iyo marwooyin mar kale iyo mar kale waxaan leenahay ilaahay nabadda gobolka mudug maanta uu haysto iyo dhammaan Soomaaliyaba ilaahay nabadda ha noo taam yeelo guud ahaan ganacsiga faa'iidada uu leeyahay yani taariikhda bilaadanka laguma hayo qof dawlad u shaqeeyay oo milyaneer noqday laakiin waxa la hayaa qof meel yar intuu furtay deeta bilyaneer noqday مثلا ninka la dhahdo Jeff Bezos hadda bilyaneerka 94 markii ay Soomaaliya isdilaysay faqiir buu ahaa maanta wuxuu ku anducoonayay inaan cid aan ka hanti sareynin laana muxuu abuuray ganacsi yar ayuu abuuray dal dumay deeq lagu ma dhiso dalkeena hooyo waxa aynu cidda dhisi kartaa waxa weeyaan waa inaga wax isku darsana ganacsatadeenna garab istaagna ayaynu ku gaari karnaa meesha aynu hibanayno
oo runtii halkan waaba goob keliye sidaad quruxdaas arkayso ayaanu dalka wada gaadhsiin karnaa. annaga ka dowlad ahaan dowladda galmudug uu hogaaminayo mudane axmed cabdi kaariye waxaa ka go'an inuu ganacsatada loo sameeyo dhiirigelin annagoo naloo igmaday oo wasaaradda maaliyadda ah waxaanu intaasi aanu samaynaynaa cashuur dhaaf iyo dhiirigelin bal inay kuwa kalena ay ku soo hirtaan.